السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Zeynab Maxamed Xasan. waxaan ka hadli doonaa hanaanka doorashada dadban ee 2016 iyo matalaadda iyo ka qayb qaadashada haweenka. Haddii aan wax yar ka iraahdo qaab dhismeedka doorashada dadban ee 2016, waxaa hirgelinta iyo hanaanka samayn doona guddiyadaas oo kala ah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashada dadban ee 2016 iyo guddiyo heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashada dadban, kuwaas oo dowlad goboleed walba uu samayn doono guddi doorashada dadban hirgeliya. iyo waxaa kale oo jiri doono qaab loo maareeyo khilaafka sida ku xusan dastuurka ku meel gaarka ah. baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inuu ka koobnaadaa 2 aqal sare iyo aqal hoose. hase ahaatee 2012 waxaa la sameeyey oo keliya aqalka hoose, kaas oo isku hayay awoodda 2 aqal. laakiin 2016 waxaa lagu dari doonaa aqalkii sare sida ay go'aamiyeen madasha hogaamiyayaasha qaran. aqalka sare haddii aan wax yar ka taabto, waxa uu ka koobnaan doonaa 56 xubnood. 8 xubnood waxaa leh dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka la samayn doono ee Hiiraan iyo Shabeelle. waxaa leh 11 xubnood dowlad goboleedka Puntland iyo beelaha ka soo jeedo Somaliland. waxaa iyaguna leh 2 xubnood beesha Banaadiriga. waxaa hadda guddi loo saaray dhowaan in ay soo go'aamiyaan ka qaybgalka ama matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare. guddigaas ayaana go'aamin doono xubnaha u matali doono gobolka Banaadir. haddii aan wax yar ka taabto ka qaybgalka ama matalaadda haweenka waxaa loo qoondeeyey 30% in ay ku yeeshaan aqalka sare. waxaa haweenka kusoo aadi doono 17 xubnood. waa in marka 17 xubnood loo qoondeeyaa haweenka. sida loo qaybiyeyna dowlad goboleedyada Puntland iyo beelaha ka soo jeedo Somaliland waa in ay u qoondeeyaan haweenka oo ay keenaan 3 ilaa 4 xubnood. meesha dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hiiraan iyo Shabeelle laga rabo in ay keenaan 2 xubnood. aqalka sare doorashadiisu waxa ay ka dhici doontaa dowlad goboleedyada caasimadahooda ama meesha fadhiga u ah iyo gobolka Banaadir. haddii aan wax yar ka taabto aqalka hoose ee baarlamaanka. aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu ka koobnaan doonaa inta uu hadda yahay oo ah 275 xubnood. waxaana lagu qaybsan doonaa sidii hore ee beeleedka ama habbeeleedka 4.5. haddii aan ka hadlo qaabka, waxaa soo xuli doona 135 oday dhaqameed ayaa waxay soo xuli doonaan dadka ama ergooyinka u codayn doono xildhibaanada. halkii xildhibaanna waxaa u codayn doono 51 qof oo ah beesha kursigaasi iska leh ama beelaha wada leh. marka guud ahaan dadka codaynayo waa 14,520. haddii aan ka hadlo haweenka ama matalaadda haweenka waxaa loo qoondeeyey in ay yeeshaan 30%. 275 waxaa haweenka kusoo aadayso 82 ilaa 83 xubnood ama kursi. beelaha leh 61 ee 4 ah waxaa laga rabaa beeshiiba in ay keento ugu yaraan 18 ilaa 19 gabdhood. beesha shanaad ee leh 31 laga rabo in ay keenaan 9 gabdhood. doorashada aqalka hoose waxa ay iyaduna ka dhici doontaa caasimadaha ama magaalooyinka kala fadhiga oo ah dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho. waxaan rajaynayaa in haweenka Soomaaliyeed ay isqabanqaabiyaan oo ay ka qayb qaataan
doorashada ha noqoto codeynta, taas oo ay ku soo aadayso haweenka boqolkiiba 30 oo ah 4,207 gabdhood oo ka qaybgeli doono ergada wax dooranaysa iyo gabdhaha u cararaya xildhibaanada. Marka waxaan ku boorinaynaa gabdhaha Soomaaliyeed in ay isdiyaariyaan, in ay isqabanqaabiyaan, in ay u istaagaan doorashada, isla markaana ay ka qayb galaan dadka wax dooranayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.